best way to understand the metaverse is to experience it yourself. maadaama COVID-19 uu sababay in hal goobo la isugu iman karin sida xafladaha arooska ama aad loo yeereeyay kasoo qaybgalayaasha xafladaha gaar ahaan waddanka Hindiya ayaa gabadh iyo wiil Hindiya u dhashay ayaa qorsheeyay inay arooskooda ku dhigtaan metaverse. Dinesh Sivakumar iyo gabadha uu jecel yahay ayaa xafladda arooskooda lagu macsuumay 2,000 oo qof kuwaas oo kasoo qayb gali doona iyagoo guryahooda jooga. sida la qorsheynayo metaverse waa aalad cusub oo loo isticmaali doono si digital 3D ah oo ay isticmaalayaashu isku iman karaan hal meelna ku xafladaysan karaan. inta xafladda aroosku socoto lamaanahan isguursanaya waxay farxadda la qaybsan doonaan martidooda sidoo kale waxay awoodaan inay marti qaadaan martida aan si kale ku iman karin. lamaanaha ayaa sheegay in dabaaldegga digitalka ah uu leeyahay faa'iidooyin kale oo badan. waxaa jiray warbixinno ku saabsan dhacdooyin kale oo aroos kala duwan oo ka dhacay aaladda metaverse oo ay ku jiraan lamaane Maraykan ah oo qabtay xaflad isku imaatin iyo mid digital ah labadaba. laakiin iyadoo sharciga Hindiya uu dhigayo in markhaatiyaal ay goobjoog ka noqdaan xafladaha guurka, hase ahaatee sida la aaminsan yahay dhacdadani ayaa noqon doonta tii ugu horreysay ee laga duwaan geliyo waddanka Hindiya ayna lamaanahani noqdaan lamaanihii ugu horreeyay ee arooskooda ku qabsada metaverse. Facebook, Microsoft, and more are defining it as the virtual world that is the next phase of the internet. In this world, we have digital versions of ourselves, or avatars. And we call this the metaverse. And you're going to be able to do almost anything you can imagine. Get together with friends and family, work, learn, play, shop. So I decided, why wait? And stupidly, I dared myself to visit the metaverse for a full 24 hours in its current, not-so-great state. In fact, Meta and others will tell you that the metaverse isn't even here yet. But the best way to see the start of it is through virtual reality. And since I didn't want to pop into a headset with my kids running around, I packed my bags and moved to the Holiday Inn Express around the corner. I set a few rules. The headset can come off to eat and go to the bathroom. No. Yes, I attempted to sleep with it on. I checked my phone only if it was